Muxuu kaga hadlay shirkiisii jaraa'idii ugu horeeyay tababaraha kooxda Manchester United? Saddex qodob ayaan ku soo qaadan doonaa shirkiisii ugu horeeyay oo dunida kaga yaabsaday hogaamiyaha Almiron oo kooxda United hogaamin doona kulankiisii ugu horeeyay maalimada Axadda. Sidoo kale muuqaalkan saaxiibayaal waxaad ku daawan doontaan shirka jaraa'idii Mikel Arteta isna kooxdiisa wuxuu kaga hadlay kulankiisa Premier League toddobaadkan oo hogaamin doona kooxda. Muuqaalka dug soo gaar like noo saar saaxiibadaadana gaarsiisa oo helna saaxiibo badan. Robin Almiron ayaa markii ugu horeysay hor yimid saxaafadda isagoo ah tababaraha United kadib markii uu xilka kala wareegay Erik ten Hag. 39 sano jirkan ayaa u muuqda qof kalsooni badan isagoo dhoola cadeyn ayuu soo fariistay shirkiisii jaraa'idii ugu horeeyay kooxda. wax laga weydiiyay Jose Mourinho qaab ciyaareedkiisa, saameynta ku yeelan karo kooxda iyo waxyaabo kale. Axad wuxuu soo muuqan doonaa kulankiisii ugu horeeyay markuu wajaho Ipswich Town. Xaaladda dhaawaca kooxda iyadoo wax badan laga weydiiyay Almiron shirkiisii jaraa'id ma jirin wax su'aalaha ku saabsan ciyaartoyda dhaawacanay kooxda United oo ka hadlay tababaraha Portugiiska. Kobe Mino, Martinez, Maguire dhammaantood door ku yeelan kara kulanka Ipswich kadib markii ka soo laabteen dhaawacyo fudud. Macalinka ayaa wax laga weydiiyay qorshihiisa kooxda. Mid ka mid ah jawaabaha Almiron xiisaha badan ee uu bixiyay kadib markii la weydiiyay qabashada Manchester ay tahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag. Tababaraha cusub ayaa muujiyay kalsooni badan isagoo yiri waxaan leeyahay qorshe kaasoo aynaan ku guuleysto halkan muddada aan ka shaqeynayo. Kalsoonida Almiron iyo xiriirka Jose Mourinho. Almiron ayaa shirkiisii jaraa'idii ugu horeeyay ku muujiyay inuu yahay shakhsi dabacsan oo kalsooni leh. 39 sano jirkan ayaa la weydiiyay su'aalo badan oo ku saabsan ninka ay isku dalka yihiin Mo, laakiin wuxuu arag ku adkeeyay nin isaga u gaar ah oo ixtiraamo. Aan ahay nin ka duwan isaga, waa shakhsi aan la shaqeeyay, wuxuu leeyahay waxyaabo badan aan rumaysan karin ayuu yiri. Shirkiisii jaraa'idii ugu horeeyay ayaan in badan saxafiyiinta ku tilmaamay ninkan inuu yahay mid kalsooni badan ay ka muuqato. Shirka jaraa'idii macallimiinta ayaa weli sii socda. Arteta qudhiisa 5 su'aal oo muhiim ah ayuu ka jawaabay kahor kulanka Nottingham Forest. Arteta ayaa la hadlay warbaahinta kahor kulanka habeen dambe kooxdiisa la ciyaaraysa Nottingham Forest. Meelaha muhiimka shirkiisa jaraa'idii kaga hadlay Arteta waxaa ka mid ah xaaladda dhaawaca kooxda, soo laabashada ciyaartoyda muhiimka ah, tamarta kooxdiisa, kulankiisa 250aad iyo kulan la qaatay maamulka intii lagu gujiyo fasaxa caalamiga. Xaaladda dhaawaca kooxda, Ben White ayaa maqnaan doona bilo kadib qalliin jilibka lagu sameeyay dhowaan. Warka wanaagsan ee Arteta uu u sheegay taageerayaasha ayaa ahaa Declan Rice, Saka ay ku soo laabteen tababarka halka Trossard isna tababar qaatay u muuqdo mid taam ah siduu shaaca ka qaaday macalinkan. Calafiori ayaa doora kulanka habeen dambe inuu ku soo laabto safka koowaad kadib dhowr usbuuc la maqnaan dhaawac. Ciyaartoyda weli soo kabashada ku jira. Tamiyazu wuxuu maqnaan doonaa muddo. Sidoo kale Arteta ayaa sheegay inaan sugnaa isaga. Kieran Tierney sidoo kale diyaar uma aha kooxda laakiin wuxuu ku jira xaalad soo kabasho ayuu Arteta. Dabaaldeg kulankiisa 250aad. Arteta ayaa kulankiisa 250aad hogaamin doona Arsenal u dabaaldegi doona habeen dambe isagoo sheekadaas ka hadlay wuxuu yiri aad ayaan ugu mahadcelinayaa kooxda waan ku faraxsanahay inaan muddo halkan joogo waxaan ku riyaaqay daqiiqad kastoo halkan ku qaatay waxaan jeclahay inaan guulo badan gaaro mustaqbalka. Tamarta ciyaartoyda 48 saac la soo dhaaf waxay ahayd mid aan rumaysan karin. Wuxuu sheegay in Arteta uu rajeynayo in dareemi doono kulanka soo aadan. Wuxuu sheegay in Arsenal ay ahayd inay badiso kulamo badan kahor inta aan la aadin fasaxa caalamiga laakiin weli waxay haystaan waqti ay ku soo kaban karaan isagoo yiri Arteta weli ma dhaw xilciyaareedka. Kulankii maamulka oo la qaatay milkiilayaasha qoyska Kooriyaanka inta lagu jiro nasashada ama fasaxa caalamiga ah waa la fariistay. Had iyo jeer waa wax fiican inaad waqti wada qaadataan maamulkaaga isla markaana aad ka hadashaan xaaladda kooxda iyo horumar loo baahan yahay ayuu yiri Mikel Arteta. Shirka jaraa'idii labada macallin ayaana sidaa ahaa kahor kulankooda toddobaadkan.